sagaal jir hooyadiisa ay ka raacday jacayl cusub oo lagu qasbay in uu kaligiisa noolaado. Intaan u gudagalin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato fadlan nagu soo biir mahadsanid. Sheekada wiil yar oo sagaal jir ah oo kaligiisa lagu qasbay in uu noolaado kadib markii hooyadii ay ka raacday jacaylkeeda cusub ayaa qabsatay hadal haynta warbaahinta Faransiiska. Meel u dhow 3 mayl guriga uu ku nool yahay wiilkan yar ay hooyadii ula guurtay jacaylkeeda cusub ee ay guursatay. waxayna cunugan yar u keentaa mararka qaar cunooyin aan ku filnayn. wiilkan dariskiisa ayaa siiya cuntooyinka ka soo hara mararka qaarna waxa uu cuntooyin u raadsadaa wadooyinka magaalada isaga oo ka cuna macmacaanka iyo waxyaabaha kale ee la soo daadiyo. marka kaliya ee wiilkeeda u timaado hooyadan waxay u keentaa cunooyin aan ku filnayn, taasi oo tuhun gelisay jaarkeedii hore ee hadda jaar kale ah wiilka ay kelida uga tagtay. taasina waxay tuhun ku abuurtay dariskeeda waxayna sheekada wiilkan yar iyo hooyadii ay la wadaageen laamaha ammaanka. baaritaan dheer oo ay sameeyeen laamaha ammaanka waxay soo ogaadeen in hooyadan ay dayacday wiilkeeda. wiilkan yar iyo booliska waa ay sheekaysteen waxaana ugu sheekeeyay wax kasta oo uu soo maray iyo sida hooyadii ay u dayacday kadib markii uu guursaday ninkan cusub ee hadda u dhaxdo. hooyadan arxanka daran maxkamad ayaa la soo taagay oo booliska magaalada ayaa maxkamadda geeyay. waxayna ku eedeeyeen in ay dayacday wiilkeeda yar oo ay meel cidla ah uga tagtay. iyaduse waxa ay ku doodeysaa in wiilkeeda ay ka warqabi jirtay had iyo jeerna ay ka warhaysay waxa uu ku sugan yahay. waxa kaliya ee la yaabka leh ayaa ah in wiilkan yar ee hooyadii dayacday uusan waxbarashada ka harin. waxa uuna mar walba uu xaadir ku ahaan jiray fasalkiisa isagoo waliba subax hore soo xaadiraya. waxa uuna waxbarashada ku ahaa fariida fahmad fiican. waxa wiilkan yar loo aqoonsaday haliyay dhabar adayg iyo dulqaad badan.